waqtigeeda ugu badan maxaan ku bixinaynaa waqtiyadeena ugu badan jacaylkiisi meeshii la rabay inaan ku bixino iyo koolkoolintiisii maxaan ku bixinaynaa Facebook baan ku bixinaynaa mashquul aroos hebel baan ku bixinaynaa labis maxay ahayd asaga loo labisanayn inaan ku bixinaynaa waa waxyaabaha qariibka noqday koolkooli ninkaaga u hees dhiirageli ahaw mid kasta gabadh garab mar kasta gabadh garab taagan oo miciise ah adiga la noolow asaga nolol ha idinka dhaxayso laakiin ahaw gabadh markay mashaakilka qabsadaan ama maxay ahayd qofkan uu culays dareemo marjici uu ku soo laaban lahaa adiga inaan la talisaa loo baahan yahay maanta dhaqaalihii aan loos ku noqday maxaan sameeyaa okay inaan fikirtaa loo baahan yahay waqti gelisid laana waa wax adiga ku saameynaya qoyskiinu saameynaya awlaadaadii saameynaya waxaa loo baahan yahay inaad talo fiican oo wanaagsan xaaj saas ma dhacday saas iyo saas waa inaad sameysaa waa inaad sanadkan meeshaas iyo meeshaad wax ka soo qaadaa meeshaas hadday wax kaaga jireen iska daa halkan xooga saar intaad lacag haysa meeshan geli meeshana insha Allah khayr ku noqon doono haddaan mitaal soo qaadano ummuna Khadiija rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markii ugu darneed marxaladiisa waxay markuu ku soo dagaay markuu isa soo duuduubay yuu tagay ummuna Khadiija okay asagoo leh zamiluni maxay ku tiri markay uu tagayna ayadoo dhiirigelinaysa oo ammaanaysa oo waliba sifaadka uu leeyahay sheegaysa yaa wixii hadallan naxariis ku oranaysay ilaahay kuma hoojinayo wallahi rasuul allah ilaahay kuma hoojinayo qof amiina tahay qof saadiqa tahay qof kana tahay sifaadkiisa uu leeyahay intay u sheegto asagoo og laakiin way ku dhiirigelinaysa Soomahan wuxuu ka qaaday adeegiyo inuu geesinimo jirco u qaado kadibna uu banaanka u soo baxo oo duuduubadii iska daay Soomahayn waxa lagaaga baahan yahay marka inaad ahaato gabadh mar kasta zawjkeeda la taliso dhiirigeliso dib markuu imaado oo maxay ahaydey u sheegto laakiin hadii aan markii hanti uu helo aan dhahno keen oo aan la wadaagno nolosha oo dhahno hanti ay ka Soomahan waa inaad halkaa geysaa okay markii hantida ay jirto waxaan isku daynaa inaan mushaarikeen markii uu dhaqaale xumo imaadana wari fur aniga kulama noolaanaye waa nolol cajiiba lagumana kasbada ragga sidaas muuj agtaad inuu qiimo ku leeyahay ninkaaga iyo inuu adiga nafsadaada qof kale oo asaga la mid ah oo nolol la wadaagayso adduunka uu saba ka jirin waa kelimo qariiba wallahi hadii aad gabaray la wadaagto zawjkaaga kalaamkaas oo aad ku dhahdo qof kale oo nafsadayda si aan kuugu aan ugu aamina xaaji macaana xabiibi ma ka hela adduunyada absolutely qalbigiisa inaad marna ka go'aynin xitaa hadii uu calaf iyo qadari ay imaato marna kalimadii ma iloobaay gabadhi maalinkii ku tiro qof kale lama wadaagayo wuu dhihi doona hatta uu ka fikiraa la talo wiilka ay guursan doonto ama qofka nolosha la wadaagayso ma anuu kale noqon doona qof waxaad noqonaysaa qalbigiisa ku taagan maanta oo dhan muujiya inaad jacayl agtaada uu ku leeyahay inaad qadarin uu ku leeyahay iyo ina waliba qiimeyn iyo qof asaga la mid ah aadan adduunyada ku arkaynin oo how gabadh aqbasha codsiga ka yimaada ninkeeda haddii uu ku dhahaado labisan oo socdo oo hooyada u socda iska joog anaa ku baahane samcan wataacan xaaji ku dheh kalmad la qaslo qofka afkiisa ka soo baxdo qofka ugu wanaagsan waa asaga la qaado waqtigaaga ugu badan adiga dareensi waliba inaa u baahan tahay asagoo meelaha joogo inuu ku soo ordaal raba isku qurxi gabare ninkaaga fadla maxaan suubinaynaa maalinka aroos aadayno labiska iyo maxay ahayd bacweynaha ugu qaalisan $70 ka bixinaynaa sax laakiin habeenkii marka asaga la seexanayno maxaan suubinaynaa maanta oo dhan diricaan kula jirnay jikada ugu agimaaneen xaraam calayk wallah waliga qalbigiisa inaadan haananaynin mana ahaanaysid gabar qalbigiisa ku weyn li'anna maalinkaad tagayso asaga xataa guriga uu ka dareemaa maalinkaad aroos u socoto wallahi xaajiga uu ka dareemayaa guriga wuxuu ku leeyahay jimcaha soo socdo ma waxaad u socotaa aroos laana lacaga weydiinay hadii aadan asaga weydiinina adoo qof kale weydiinaya gabar saaxiibta ah heblo waxaan u baahanahay sadkaaga saas ah ma yaala ama waxaan u baahanahay sad qof ay iga soo qaado ma helaysaa adiga wuxuu ka dareemayaa isaara wuxuu ka dareemayaa dhaqdhaqaaq aad ku muujinayso oo ku weyneynayso inaad jimcaha aroos u socoto aroos shidana u socdaaya leedahay asagu wuxuu isku arkayaa agtaada markaas inaad waxba ka ahayn laana wuxuu isweydiinayaa gabadhan markaad la nooshahay aad adiga kula joogto waxay wadataa diracay jikada kula jirtay markay laakiin aroos aadayso $100 ay qaadataa
okay waxa weyn arooska adiga laakiin kuma weynid qalbigeeda wuu isweydiinayaa soo maahan adigoo awoodo inaad isku qurxiso xaajigaaga oo sadadka qaarkood aad u xidhato asaga oo waliba aad u sheegtid lacagtana aadan ka qaadin ha ka qaadin lacagta markaad adiga sadka soo gadanayso adiga nafsadaada maareeya waxyaabaha kale ee u baahannahay waa maareynaa soo maahan soo gadaadi inta soo gadato oo isku soo qurxiso oo bukiyeer ka tagto oo make upka arooska markaad soo marsanaysa aad soo marsatid oo tinta aad soo hagaajisatid oo adiga dhan aad wada birbirqaysid oo guriga sariirtii aad ka hagaajiso oo casho fiican ugu talagasho hal habeenada kamida balu imow inuu ku waayo aad aragtide inuu qalbigaaga maxay hayday uu ka baxaad aragtide kama bixi karto qalbigiisa laana qofkan muyulaadkiisa haduu adiga ka dhaxarka aniga dantayda maanta hadaan gabadha halkaan fadhida aan ka dhaxarko marna sahliguma noqonayso samaahan qofkan haduu raqbaadkiisa qofkan uu ka helo qof kale ma bahaweysanay sax laakiin qofkii baylahsan ee aan u baahnayn inuu maxay ahaydo qofkan hanto qofkii qasab wuxuu ku yahay inuu meel kala fiirfiiriyo samaahan rag way damac badan yihiin dooqooduna waa indhaha liir sax fanaaniinta way taabtaan soo maahan qofkan wuxuu qiyaasayaa oo qalbi uu fiirinayaa oo kaliya gabadhan structure-keeda gabadhan mara nadiif u muudataa gabadhan markii ay kula hadlayso kelimo si ay kula hadashaa waraayaro haday ku dhahdo iyo xabiib haday ku dhahdo macaan haday ku dhahdo farqi baa u dhaxayso maahan okay markasta qalbigaaga marka ilmaha yarka ah dhashay markaad wax ka celinayso hooyada hadaad dhahdo iyo naayada hadaad dhahdo isku mid maahan markaad hooyada dhahdo way ku jilcaysaa hayo hooyo kugu jawaabay ilmaha ugu dhaga adag aduu yahay ilmaha aad dhashay ninkana waa ka mid hada wallahi hadii asaga oo adigoo faraxsan oo qoslaaya oo mara nadiif wata aad u imaato oo darti isku soo qurxiyay oo waliba u muujiyay inaad dartiis isku soo qurxisay oo cuntada cuni lahaa u qurxiyay oo sariirtu seexan lahaa u qurxiyay marna laga ma yaabana inaad ilowdo ninkaas waxaad ku samaysay hanasho waana hanata qalbigiisana kama baxaysid hadii ay suurtagal tahay oo uu jecel yahay inaad isku raacdaan goobo casho waad isku raacaysaan maanta xaaji dalabka waa adiga leedahay waxaad ka ogaanaysaa halkaas cuntada uu jecel yahay guriga fadlan waxaad ugu dadaalaysaa cuntadu markaas doortay hatta ta koobaad weydiiyaa la dhahaa waxay dhahan kitaabtu ta koobaad marka u horeyso dalbado waxa laga yaabaa in ma taalo la dhaho okay ta labaad waa raqbadiisa labaad fiiri saddex option laga yaabaa inuu halkaas aad ka istafiido ta koobaad weydiiyo hadii la dhaho ma taalo adiga ilaa waxaad wadataa moogtahay waxyaabaad ku ogaanaysay tii koobaad waa inaad ogaataa ta labaad markii uu weydiiyo ta labaad waa tii doorkiisa labaad waay waxa lagu leeyahay markaad isku qurxinaysid waa inaad marsataa barafuunada uu jecel yahay hadii aad asaga isku soo qurxisay oo aad sariirta dartii u timid sariirtiina aad qurxisay barafuun uu nacab yahayna uu ka soo uraayo qofkaasi kasbashadiisa maada ku xeel dheeraan barafuunka uu jecel yahay asaga waa inaad marsataa okay sirtiisa dhowr waxa loo baahan yahay qodobka 8aad inuu noqdo oo gabadhaani ilaaliso sirta zawjkeeda ama sirta qofkeeda nolosha inay la wadaagto ay u diyaarinayso maxaa suubinaa hadda oo la arkaa laba gabadhii wiilkii haday barnaamij yar oo khilaaf uu ku dhaxmaro gurigoodii hooyadeeda uu la orday saaxiibteeda uu la orday gabadha dariska subaxaaba waa u sheegay habeenkii waxay kii xalay waxaan isniir moogta saasi sheekadaas ii keenay moogta xalay telefoon ku hadlaayay saasaan iri kan war qofkan waxa u joojuubaysaa adiga maanta haduu ku dhaw xageed u socotaa ugu yaraan waa ka xanaaqaynaa sax okay nafsadaada marka adiga ma jeclid in lagu joojuubo asaga maxaad u joojuubay sirtiisii adiga asaga idin dhexmaray laba arab iyo ka isugu dhaweey isqamaan ina isqabanaysaan waa sax laakiin hag la wadaagin qof kale noqo gabadhan cabasho badnayn waa jiranahay halkan ay ka baxday isbitaal hebel aan u baahanahay sidaan iyo sidaan waaye saa iima samaysid waxa ma laga yaabana inaad samaysay waligay Allah jaceylka ma arkin waligay kelimo jaceyl imaada dhihin waligay xitaa kelimo xun ku muusa dhihin hal mar kasta laakiin waxa dabci u leedahay gabadh cabasho badan inaan noqoto mar kasta uu wax ku siiyo waligay $1 maada siin inaad leedahay abtigay waagi maada wax siiyay maada ka yiri hooyada maada saasiisaas yiri daa'iman gabar sheegasho badanaata inaad karaamayso ehelkiisa oo dhan walaashiis aadan colaysanin maxaa dhana anaga guriyeena Soomaalida dumaashi ma fiicnaan dhahna la waxaas waa fikir xun waa fikir aan qurux badnayn waa inaan iska saarnaa
walaashaayoo kaleeto waay walaashaana sirtii u sheeganay walaashiisna waxaan u bixinaysaa magac